wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland mudane Salebaan Cali Koore ayaa markii ugu horeysay jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani taasi oo ku aadanaa deegaanka Tukaraq isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland wasiir Salebaan Cali Koore ugu horeyn arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri runtii sida aad wada ogsoontihiin dowlad maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxaa dhawaan laga doortay maamulka waxaanu ka filaynay aqli iyo wax ka duwan wixii hore in ummaddu ay ku niyaarato ama wax ka fiican iyo fikir ka fiican wixii hore jiray in ummadda deegaanada ku nool conflict ama isqabsi lagu abuuro cidda ugu badan ee ay arrimahaasi taabanayaanna waa dadka deegaanka ku nool sidaa daraaddeed ninka cusub ee la doortay madaxweynaha loo doortay gobol maamul goboleedka waxaa ka muuqda inuu hadalkii ugu dambeeyey oo BBC-da siiyey inuu la mid yahay ama la aragti yahay raggii hore although markii la dooranayay aanu islahayn wuu ka duwan yahay ama wax badan buu kaga duwan yahay kuwii hore waxaan leeyahay kelmadda aan leeyahay waxa weeye ummadda dadka deegaankaasi uma baahna dhib waxay u baahan yihiin nabad iyo nolol waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin inay la jaan qaadaan dadka derisyada ee hareeraha ka xiga waxaan leeyahay dhib intii hore ha ku filaato caqligu inuu shaqeeyo deegaamada dadku waxay la xuquuq yihiin dadka deegaamadooda hagaajistay maanta maamulkii Somaliland xuduudaha Somaliland oo dhan baa lagu fidiyey cid xukuumadda Somaliland iyo ummadda reer Somaliland iyo dadka reer Somaliland iyo deegaamada Sanaag iyo Sool cid ay u daba fadhiyaan masiirkooda ma jirto qarannimada Somaliland cid loo daba fadhiyaa ma jirto ama cid looga hamranaya madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub waxaan leeyahay haddii conflict wax tarayo 22 sanadood buu soo socday iyo isqaqabsi iyo military power 22 sanadood buu soo socday waxaan leeyahay ka waantooba dadkiina idin doortay iyo deegaanka idin doortay ee saddexdaa gobol ee maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya horumar gaarsiiya annagana naga daaya dhibta dadka deegaankaasina ma mudna in ay noqoto meel lagu ciyaaro oo maalin kasta dhiigooda lagu daadiyo sababo siyaasiya oo aanay dan ku lahayn ninka loo doortay Qardho iyo Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo ayaa horumar u baahan iyo nabad iyo nolol in la wada noolaado halkan annaga ku filan cid aan uga tanaasuleyna xuduudihii dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ma jirto laakiin waxaan ogolahay Nagiib Cabdilaahi Colaad telefishinka caalamiga Bulsho TV magaalada Hargeysa.